halkani waa qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Daroor waxaanay hooyooyin iyo dad caruur badan saf dheer ugu jiraan sidii biyo halkan lagu qaybinay qaybtooda heli lahaayeen waxaanay hooyooyinkan la daala dhacayaan duruufta adag ee abaarta halka ka jirta qaar ka mid ah hooyooyinka oo warbaahinta Xooda Media la hadlay ayaa sheegay inay wajahayaan xaalad biyo la'aaneed hooyo biyo foostooyinkii waa barta la keenay xagee foostooyinka laga keenay foostooyinkana qaladayadii baan ka keenay kolkii hore aan ku dhaansan jiray marka imika halkan baan isugu keenay aqaladu in kastaba way jiraan qaar baa laga yaabaa inay aridaaq dhowdhow jiraan qaarba meel baa lagala soo cararay haddii lagala soo cararay alxamdulilah rabbil caalamiin qofkii wax la helay ayuu leeyahay imakiya haatanna waxaanu ku dhuranaa shirikaamada guryahaanu ku soo dhurdhuraa dusuudaanu ku shubanaa weelka yaryar aynu haysanaanu ku shubanaa marka dambe haddana foostada lagu shubaa alxamdulilah rabbil caalamiin markuu raalli ilaahay kaga nahay foostadu markay idinka marato haa biyo xagee u doonataan dee waxaanu u doonanaa kolba sidii alla wax noo siiyo kolba sidii alla wax noo siiyo haddaanu suuqa wax ka helno waa dahab haddaanu wax ka weyno waa dahab godabooyadaha iyagun baana noo jajaban alxamdulilah rabbil caalamiin biyaha maxaa lagu riixayaa markaa biyaha kaaryoon iyo shirikaan aduma dadka biyaha riixayaad ka mid ayaan ka mid ahay itaalkaana waan leeyahay dee miyaan fadhii karaa haraad bay wada daawadayaal halkana waa goob kale oo ka mid ah xaafadaha magaalada Daroor oo lagu dhaansanayo biyihii Aamina Khayre bal ka warbixin halkan biyaha ku dhaansataan bal nidaamkan biyaha u dhaansata ka war waxaanu nahay degmada Daroor qabalay kamid ah oo xaafada koobaada waxaanu nahay xaafad balaaran ilaa 60 foosto ayaanu dhiganay waxaana loogu shubaa maalmaha qaar kood 10 foosto maalmaha qaarna 30 foosto waxaanu dhaansanaa saddex shirkaan maalmaha qaar haaf maalmaha qaarna foosto si biyo badan yihiin haraad adag baan haysta waxaanu nahay degmo balaaran oo qabalayadooda aad u haraad badan yihiin waxaanu nahay dad dayacaad badan ka tirsanaya dawladda oo aan cidibo ogeyn ayaanu nahay marka waxaanu doonaynaa in dawladdu inoo ogaato riigii uu naga biyo yareeyay biyihiis way yaraadeen haraad baanu u maranaynaa in dawladdu naga warhayso haddii riig labaadna loo helayo iyo haddii saddexaadna loo helayaba waxaanu nahay degmo aad u daciif oo haraadkeedu adag yahay marka waxaanu doonaynaa dawladdu inay hoos noo eegto aadna loo eego 84 qabalay iyo weliba qabalaye yaryar oo hoose oo kuwada hoos nool baanu leenahay dad balaaran baanu nahay wixii wax nooga dhintaan waa haraad aad baanu u dayacanay imise sanadood baan waxaanu helin saddex biyo baanu helin dayr baanu helin gubaanu helin dayrtii labaad baanu helin biyo saddexaad baa la sugayaa afraad baa la sugayaa haraad adag baan haystay baraagina waana laga aasay degmadii baraagaa laga aasay baan marka dawladdu dayacaada iyada noogu tala gashay baraagahaygii baa naga aastay aanu 3 bilood hore abi jiray marka wax noo galaan hatta imika waxaanu weynay weel hadii reer miyiga booyad barkad loogu shubo waa la waayay dayacaada badan baanu qabnaa dawladdu hoos noo eegto dhanka kale mas'uuliyiinta degmada Daroor waxay dadaal ugu jiraan si biyo heli lahaayeen shacabka ku dhaqan degmada Daroor madaxa xafiisyada Cabdiraxiin Maxamed Ducaale ayaa ka warbixiyay dadaalada ay wadaan ka maamul ahaan waxaana kamid ah hadaladiisii bismillaahir rahmaanir rahiim Yuusuf aad baad mahadsan tahay magacay waa Cabdiraxiin Maxamed Ducaale madaxa xafiiska maareynta iyo khataraha ee degmada Daroor ahna xogayaha guud ee guddiga abaaraha ee degmada Daroor runtii degmada waxa ka jirta abaar aad u baahan baa ka jirta run ahaantii jiilal baa la galay weelbiyoodka ay degmadu leedahay maadaama ciid riigo kaliya yahay runtii aad bay maartay baahida way soo badan tahay biyaha gudi ahaan waxaanu qaadanay qorshe aan samaysano in maalin walba qabalayada qaar kamid loo dhaamiyo maalintii waxaanu dhaaminaa 4 boodood oo kamid maartay degmada booyadaheeda labada boodood ee degmada maalinba laba qabalay ama 4 qabalay wixii ay kartaan u darnaa caawa waxaanu dhaaminaynaa qabalay kamid ah qabalayada degmada Daroor waa qabalay koobaad 5 goobood oo misadoo foosta ayaan u diyaarinay halkaas maartay qabalay kastaaba 30 kiisa foosto ay ku dhaansanayaan xaafadii waxay helaysaa markaas ala foosto marka baahidaas ka jirta run ahaantii xilligaas saacada taagantay waxaan u taaganahay saacada aragtaan xilliga aragtay 9 habeenimo waxaan u taaganahay inaan u adeegno shacabka oo u dhaamino si hagar la'aana degmada eelbiyeedkooda waxa weeyaan waa ceel riyo kaliya 24 saacba hal mar madama ceelkaasi walow hadda biyo yareey maadaama jiilaalkii la galay ceelku aad